Booliiska magaalada Bergen ee caasimadda labaad ee dalka Norway ayaa lagu soo waramayaa in ay gacanta ku soo dhigeen nin u dhashay Yurubta Bari oo isku dayay in uu fal kufsi ah u geysto haweeney uu doonayay in uu gaarigiisa ku qaado. Ninkan ayaa lagu soo waramayaa isaga oo gaarigiisa wata in uu haweeneydani ku arkay iyada oo taagan wadada, waxa ayna sheegtay haweeneydan oo da'deeda lagu qiyaasay 20 in ay doonaysay in ay raacdo taxi Uber ah oo ay halkaasi ku sugaysay. Hayeeshee uu gaarigan u istaagay iyaduna ay mooday in uu yahay taxigii Uber-ka ay sugaysay, sidaana ay ku raacday. Waxa uuna sheegay ninka lagu tuhmayo in uu falkani kufsiga kula dhaqaaqi rabay haweeneydani inuu isku dayay in uu caawiyo maadaama uu arkay haweeneydan oo sarqaansan oo wadada taagan, wuxuuna isku dayay in uu gaarigiisa ku qaado sida uu sheegay si uu gurigeeda u geeyo. Haweeneydan oo da'deeda lagu sheegay da'da 20aad ayaa iyadu sharaxday in ninkani uu soo qaaday gaariga qaybta dambena uu geeyay, halkaasna uu isku dayay in uu ku kufsado, iyaduna ay qaylisay. Gaari ka mid ah gawaarida militariga oo goobta marayay ayaa ku soo leexday oo arrintaasi sidoo kalena xaqiijiyay, booliiskana u wacay iyaga oo halkaasi ku duubay muuqaalo. Waxaana lagu soo waramayaa ninkan u dhashay Yurubta Bari in da'diisu ay tahay 30 isaguna uu ahaa nin sarqaansan marka uu falkani sameynayay. Kiiska ama galdacwadeedka ninkan lagu soo oogay markii hore ayaa ahaa isku day galmo aan raali looga ahayn ama darafka kale uusan ogoleen. Hayeeshee markii dambe ayaa kiiska la ballaariyay waxaana laga dhigay kiis kufsi ah, iyadoo hadda ay maxkamadeyntiisu ninkan ay ka socoto maxkamadda magaalada Bergen ee caasimadda labaad ee dalka Norway. 4 toddobaad oo xabsi ah ayay maxkamadda ninkan u xukuntay si uusan u baxsan kiiskana loogu sameeyo baaritaan baaxad weyn. Maxkamadda deegaanada Hordaland ee dalka Norway ayaa iyadu sheegayso in 4 toddobaad ay ninkan ku xukuntay ay tahay sil baaritaan dheeri ah loogu sameeyo isaguna uusan uga baxsanin wadanka. Ninkan ayaa sheegay in uu isku dayay haweeneydan in uu u soo dhawaado maadaama ay sarqaansaneed, uuna dhunkaday habna uu siiyay, iskuna dayay in uu jir ahaan u dhawaado. Hayeeshee haweeneydan ay ku qaylisay in ay garaacdana ay bilowday. Waxaana lagu soo waramayaa in muuqaalo caddaynaya isku dayga ninkan uu ku doonayo in uu haweeneydan ugu galmoodo lagu soo bandhigay maxkamadda, iyadoo la sheegayo in inka badan 3 daqiiqo iyo bar ay ku wada sugnaayeen qaybta dambe ee gaariga, ninkanna isku dayay in uu haweeneydan ugu galmoodo. Waxaana lagu soo waramayaa in ay haweeneydani iyadu qudheedu qiratay in ay sarqaansaneed oo ay sugaysay gaari Uber ah. Kiiskan ayaa hadda waxa uu ka socdaa maxkamadda magaalada Bergen ee caasimadda labaad ee dalka Norway. Halka warka kiisa ugu door koror uu idinkaga imaanayo waa Somali Voice Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway, waxaana idinla socodsiinayay aniga oo ah Cabdullaahi Shiine.